أباري اللي صلاة الصبح على قصة بعد كتب أيام وحال لقى مغلي جبت الرصاص قبل الرسمي درسنا يو deegaan lagu magacaabo Burdaar ee dadka koonfurta ka xigta ee magaalada Beledweyne arrinta gobolkiina ilaa iyo deegaanka lagu magacaabo Tareejanta oo ku dhow Burdaar dadka deegaanka tuulooyinka dhaca hareeraha webiga Shabeelle oo qadka gaarsiinta aroorta saakaytaan kula xiriiray ayaa in ay maqlayaan jug aad u xooggan iyo markaasi uuro iyadoo ay ii sheegeen rasaasu inay ka socotay markii ugu hore ay ka bilaabatay deegaanka Burdaar kadibna haddana laga maqla dhanka iyo tuulada ama deegaanka lagu magacaabo Tareejanta wadada laamiga deegaanadaasi baan ka dhacay ayaa waxay tahay deegaanadii hore looga saaray dagaalamayaasha al-shabaab khasaaraha dhabta cali suhayb ilaa iminka lama xaqiijin karo maadaama dagaalka iminka uu soconayo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah ee deegaanada tuulooyinka ku dhow deegaanka dagaalada oo ka soconayaan ay sheegeen inay wiiftada iyo jugta rasaastuna ay si weyn u maqlayaan rasaasta ay deesanayeen saakii aroortii hore ay bilaabatay xilligii laga soo baxay salaada subax ilaa iminkaan kula hadlaynay cali suhayb dagaalkii wuu soconayaa weli laguma kala bixin sida ay sheegeen dadka deegaankaas ka dhow dagaalka waxaa soo qaaday dagaalamayaasha al-shabaab oo muddooyinkii dambeeyiga ku sugnaa hareeraha jiinka webiga dhanka galbeedka ay ka soo qaadeen weerarka sida ay sheegeen dadka tuulooyinkaas ku dhow waxayna soo weerareen deegaanka Burdaar iyo deegaanka Tareejanta weli halkaa waxaa ku sugnaa ciidamada deegaanka oo iyaga la howlgelayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan deegaanadaasi sheegay hareeraha jiinka webiga inay kula dagaalami doonaan al-shabaab dhanka ay kaga sugan yihiin dagaalkiina weli wuu soconayaa sida dadka ku dhaqan tuulooyinka hareeraha webiga Shabeelle oo goobo kala duwan joogan sida tuulooyinka Taankaale ilaa iyo Jiqley oo ay sheegeen ay maqlayaan